ugu horreyn waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto mar labaad inaan tacsi u dirno walaalkeen Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo run ahaantii buddigu ahaa isku xidhka iyo ka shaqaynta dastuurka halka maanta ay soo gaadhay guddiyada kala duwan ha ka soo shaqeeyeen bulshada kale ka qayb qaadatay aqoon-yahanku ha ka shaqeeyeen agaasimaha wasaaradda dastuurka ka shaqeeyeen iyo xirfad-yaqaanka kaleba laakiin sidaa uu runtii u yidhi wasiir Saalax Xoosh wuxuu ahaa nin furfuran oo ballaadhan aan cidnaba cuqdadu qabin dadka Soomaaliyeed dhex u ah iskuna xidhi kara shaqadiina ka aqoon-yahan sharcina ahaa xogogaal u ahaa Soomaaliya duruufihii ay ku sugnayd muddadii u dambeysay iyo intii aan xorriyadda qaadanayba marka quality-gaas iyo xirfadaha iyo shakhsiyadaha noocaasa oo intaasoo dhan isu keeni kara qof leh waa wax muhiim u ah hirgelinta dastuurka iyo dib-u-qoristiisa iyo ka shaqayntiisa siyaasiyan in la isku xidho markii aan fikirno maskaxda tuujinnay golaha wasiiradana eegnay waxaan siri kaalintii Xoosh waxaa buuxin karayaa wasiir Saalax run ahaantii isaguba dadka dhex u ah bulshooyinka Soomaaliyeed aqoon wada leh kana soo shaqayn jiray shaqadan in badan hadday tahay doorashooyinka hadday tahay dhismaha qaranka intii aanu wasiirka noqon ka hor iyo haddoo xildhibaanna ahaa wasiirna ahaa guddida siyaasadda loo dhanyayna ka tirsanaa waxaan is leeyahay badilkii insha Allah Xoosh waa haysanaa guddiyadii dhardhaarka ahaa iyo sharci-yaqaankii iyo farsamo-yaqaankii Soomaaliyeed kalena waa inoo joogaa iyo dhammaan ciddii aynu gacan weydiisanayno inala shaqaynaysay iyo dawladda oo ay ka go'an tahay madaxweynaha ay ka go'an tahay ra'iisul wasaaraha ay ka go'an tahay inaynu dhammaystirno dastuurka isla xisaabtanka xukuumadda ay noogu jirtaa waxaanu wasaaradda kula xisaabtamaynaa iyagoo si dhow la shaqaynaya guddiyada ay khusayso in la dhammaystiro dastuurku sidaa loo sheegay waa heshiis bulsho waa dokumenti siyaasadeed oo nooca dawladnimo la doonayo inaynu yeelanno nooca qaran aan dhisanayno doorka dawladdu hay'adaheeda kala duwan leeyihiin in lagaga heshiiyo iyo laba dokumenti sharci inuu yahay xuquuqihii iyo aasaasiyaadkii xuquuqdii iyo waajibaadkii hay'adu kala lahaayeen iyo awoodihii la kala lahaa ee sharciga ahaa in uu dhigo oo uu hirgeliyo marka in gacmo wada jir iyo hawl bay wax ku go'aanay ay maanta gudoomiye Cabdi Qaybidiid iyo guddida kale oo dastuurka inooga shaqeynayay wasaaradda saddexdoodiba heshiis yihiin oo ay wada shaqeynayaan waa waxa aad u wanaagsan oo inoo hirgelin doonta waqtigii loogu talagalay dastuurka inuu dhamaado waa run oo waxaynu ku dhex jirnaa ama aan dooranno ama hala inoo doore nidaam la yiraahdo federaal oo u baahan ablayn dheeraada in lagu sameeyo nidaamka federaalka Soomaaliya anfaca keebuu yahay federaal oo maxaad tahay inaynu federaalka u abtirino si qoto dheer loo eego dhaqankeena Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa iyo taariikhdii dawladnimada intaynu lahayn federaalka Soomaali maanta anfacaya keebuu yahay waxay la tahay dootaas ah ta ugu ballaaran in aynu saldhigno dabadeedna ay ka dhalato maxay yeelanaysaa dawladda dhexe maxay dawlad goboleedyadu xaq u leeyihiin iyo awood maxay yihiin awoodaha ay wadaagaan iyo maxay yihiin awoodaha soo haray cideesa leh haddii inahaas la isla meel dhigo oo la garto waxaan is leeyahay arrimaha kale oo maqaamka caasimaddu ku yeelanayso iyo sida loogu wadaagayo khayraadka kala duwan inay yihiin waxyaabo iyagana laga heshin karayo asaasiyaadka u ah dastuurku inuu meel uu saldhigo dad islaamaynu nahay shareecada islaamku doorkee bay ku leedahay dastuurku manbaca sharcigu se iyuu yahay waxyaabaha kale iyadana aynu tahay inaynu ka fiirino Afrika qayb baynu inaguba ka noolaanahay waxa la yiraahdaa Ali Masruur Africa's triple heritage dhaxalkii saddexda ahaa ee Afrikaanku heleen dad dhaqan leh bay ahaayeen Christianity-ga u yimid waxbuu kaga tagay dad dhaqan bil leh bay ahaayeen Islaamka u yimid waxay raadad buu kaga tagay dhaqankii wadanka ama ummadaasi lahaadna sidiisii buu u sii jiray haddana waxa taa kormartay dawladnimadii oo iyaguna nooc sharci oo saddexaad soo kordhisay marka dhaqankii islaamkii dawladnimadii iyo state-ku doorkee buu ku leeyahay waxyaabaha ay tahay inuu dastuurku oo ka wada muuqato ilaa ummadu waxaynu nahay ummadaha adduunka kamid ah waxaan is leeyahay markaynu maskaxda wada tuujino aynu fikirka isku darno in dastuur Soomaali u cuntama aynu insha Allah heli doono dastuurkana ummadda Soomaaliyeed baa iska leh
waa inaynaan ku eegin xafiiska yaa maanta fadhiya maanta madaxweyne farmaajo joogay indhaha rabitaanka dawladda ama ra'iisul wasaaraha joogay rabitaankiisa ama gudida baarlamaanka iyo ama gudida qorista dastuurka ama wasaaradda cidii maanta joogtaa yeena ku feerinin sideen isu leekaysiya kabal ilaagaan u tasha laakiin aynu ka fakarno boqolka sanadood ee soo socda inaynu dib u yagleelno qaran baa inaga burburay tabashooyin kala duwan oo jiray buu u burburay inaan mar labaad una inaga burburino damqashada iyo dhibka iyo hagardaamada ayna soo martay ayna dhicin maxaa xal u ah maxaa dan u ah Soomaali inaynu ka eegno taana ku salayno waxa kaloo inoo soo la inaga rabaa inaynu hirgelino doorasho hal qof iyo hal cod ah oo xor ah oo xalaal dalkan inay ka dhacdo oo ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadooda iyo hogaamiyayaashooda ay iyagu soo doortaan taa hirgelinteeda iyadoo guddiga doorashooyinkana aynu la shaqeynayno maxaa dastuurka kala gudboon halkeeba nooca dawladnimo ee aynu yeelanaynaa madaxtooyo toos loo soo doorto madaxweynaha ma baarlamaanka la doorto madaxweynaha ay sii doortaan oo ra'iisul wasaare ka yimaada xisbiyada siyaasadda imaka shalay gudoomiyaha guddida siyaasadda iyo ilaa 46 xisbi siyaasadeed baynu maanta inoo diiwaan gashay gudoomiye Soomaaliya marka 46kii xisbi iyo xisbiyada kale soo socda doorka ay ku yeelanayaan maxay tahay nidaamka xisbinimada beeli aynu ka guureyno xisbinimadii aynu u guureyno waxyaabahaas oo dhan waa dooda dastuurka qof kasta oo Soomaaliyeedna uu role ku leeyahay ama lug ku leeyahay kaalin ku leeyahay inuu ka dhex muuqdo fikirkiisana la arkaa ay tahay in la helo dastuurku waa kii ummadda Soomaaliyeed qaybta kale ee muhiimka ah ee maskaxdayna ku hayna tahay waxa weeye dastuur baynu qoraynaa waa ku heshiinaynaa waa soo gabagaboobay dooma insha Allah laakiin Somaliland doorka ay ku yeelanaysa iyaduna dastuurku muxuu yahay waa waxyaabaha su'aalaha u baahan inaynu si dastuuri ah uga jawaabno oo aynu u yagleelno qaran Soomaaliyeed oo taabagala